الرحمن الرحيم هدي عاد بيرج عشان تاي فضل مقالك هداون هدي عادن أهين بيلها وين إيوه ما أنت بطلان دفاعية هذا كم الآن عباديستينا فضل مقالك هداون هداتها جبر أورت ضوابر والله فضل مقالك هداون إذا عدن waxa looga waramaa carruur loogama waramo dad waaweyn baa looga waramaa meeshaan runta kaliya lagu soo gudbiyaa qofna laguma sasabo innana laguma qooro saraaxo waxa raa ku dir istaago qasaarihii dhabta ee maanta ka dhashay dagaalka isku arkeen argagixisada Daacish iyo ciidamada daraawiishta Puntland ama geesiyaasha Puntland waxa raa kale kugu dir istaago deegaano cusub oo caawa kamid ah gobolka bari oo caawa ay argagixisadu soo dul degtay iyo reerka meesha degan inta aan qodobkaas aan gelin waxaan ku bilaabayaa qasaaraha dhabta ah dagaalka ma istaagin aaska isugu midoobaaday dhaawacu waa tirabeel ilaa ay hadda xaqiiqda dhaawaca ee saxda ah lama hayo laakiin markii beelaha dhan isku daro ilaa ay 200 dhaawac kor buu dhaafay dhimashada hadii aan ku dul istaago reerka ugu dhimashada badan waa reerka loo warsangeli oo aad ogtiin deegaanadooda inuu ka socdo dagaalo maanta hadda iyo kadibna ay dagaal ku baaqeen say deegaanadooda ay dib ugu soo ceshan lahaayeen maanta warsangeliso sharafta Puntland difaacaya 20 nin baa meesha kaga dhimatay baabuurna waxba ka gaaray waxa kamid ah ragga dhaawacmay saraakiil aad garanaysaan oo warsangeliya sida Cabdiraxmaan Dheere iyo Gaagaale rag saraakiil oo ciidanka hogaaminayay hadaa maqasho marka taliyiba wax gaareen ciidankan hogaaminayay macnaheedu waxa weeye ciidankaasi sidii nin weyn bay u cibaadaysteen gacantaana la suna tagay markaas oo kale warsangeli gabar kasta iyo wiil kasta oo warsangeli halkan ka salaamaya waxa la yahay difaaca Puntland adoo deegaanadaadi maanta inta wixii loo ka socdaan inaad mar kasta u taageerta difaaca Puntland ma hada ka gaadhan kulaya suldaan reerka labaad inta dhimatay ee warsangeliga Allah u naxariisto waa shahiid kitaabkooda midigta Allah ka siiyo waxaan u gudbayaa reerka Cali Jibraahiil oo iyagana ragii maanta kaliya Cali Jibraahiil ma iyagay warsangeli waa laba jeer oo argixisada soo weerartay waa cibaadaysteen maanta oo markii ugu horeysay oo ciidamada Puntland ay weerar qaadaana Cali Jibraahiil kaalin lixaad wuxuu ka qaatay weerarka 18 dhimasho oo hadda la ii sheegay waqtigan in naftu ka baxday General Cabdiqani Toreyo aad wada garanaysaan oo ahaa taliye ku xigeenka ciidamada BMBF Cali Jibraahiil baabuurna waa ka gubatay bidaha biduu dhalay ee dibra muuqaalkan gaarsiiya reerkan Cali Jibraahiil ma taqaanid reerayowga geedaha la daaqin baa jira reerkan Cali Jibraahiil waxa dhacday hadda koor anagoo jawhar ka soo guurnay oo soo degnay baydhabo oo baydhabo qarax nagu qabsaday baa Cabdullaahi Sulxi dambe wuxuu yiri rag khaas ah intuu ka haystay baan waxa ka degnay meesha loo boosaaso ma Sulxa Cabdullaahi diyaaradu rag ugu sii waramay wuxuu yiri marka hore meesha loo socdo dadku muu sheegay markii dambe beeldaajiyahan ka soo ducaysanay Cali Faarax wallahi uquba dunida aad ku arkaysa daniyo ninka aad kulaasiisina boobtay baabuurtiisana ku dhamaanayso ragiisana ku dhamaanaysa hadaa fadhiga ugu tagin aadan cagaha ka shumin mana taqaanid warka aan ku sheegayo anu inaan ku nabcaa u qabtaa biduu dhalay wanaagaaga dadkaan aan mas'uulka ka tahay anu baqaar baa dhul baantana kugu meemaan masiirka umada reer Puntland baad xoog ku haysataa ninkaas u tag oo ninka ka ducayso oo Cali Jibraahiil maantadan ragga ku dhamaanay qayb lixaad la kayeen iyagii warsangeliyo qabiilada halka kaaga tirinay ku dhamaanaya niyow si gooniye ilgaaro weeg biduu dhalay aan xishoon oo aan Ilaahay aqoon oo aan rag waxba ka garanayn ee ku qoray bataatiga waaya reer kala maanta cibaadaystay Cali Saleebaniya ya adar Cali maanta waa cibaadaysteen bal maanta kala wax ka sheego maanta kala dibiraha sukaaya diro ani adiga maanta adar Cali Taajir si weyn buu cibaadaystay dad beelihii waaweynaa ee Daacish gacanta ula tagay buu kamid ahaa dhimashadooda ilaahay hadda waa 16 nin weeye oo dhimasho ah dhaawacoodu waa tirabeel dhaawac sax oo la sheegi kara ninkii ku sheegay waa been laakiin Cali Salaam maanta 12 baawur baa ka gubatay waa dagaalamay ragga gacanta ula tagay buu ku jira Cali Salaam Cali Taajir waxaan ku leeyahay inta ka dhimatay dhammaan halka ku dhimatay adoo ka mid tahay Ilaahay kitaabkooda midigta ka siiyo rag shahiida oo dhulka iyagu iska leh marka adar Cali wuxuu maanta uga mahad celinayaan sharafta iyo ciisaha dadka reer Puntland isagoo difaacaya deegaanadiisa isagoo difaacanaya in argixisada Daacish ay maanta nabar ku dhufteen
dhimashada adeer cali isaguna waa 16 wey oo geesiyaala waxaan dul istaagayaa raggii magaca weynaa iyagana hadda raggu iskuma jiro kuwa si khaas ah loo xusaa markii meerada la joogo raggii reer khalaf ahaa iyaga lama dhaw Cumar Maxamuud iyo waa reer khalaf wey duwana gaaciye oo sargaalkii ugu sareeyay ah ciidamadaas baa ku jiray ragga dhaawacmay isagoo xabada ridaya oo dagaalamaya oo nimankii gacan ula tagay buu dhaawacmay dhaawaciisa hadda boosaasa la keenay 12 nin baa reer khalaf maanta ka dhimatay waxaan leeyahay mujaahidiin waa shahiid kitaabkooda miigta Allah ka siiyo 100 jeer hore ayaa maqashan reer khalaf masubaxa loo baahan yahay ragga kiisa adag nooc ragga lagu baxsaday wey waa ragga markii goobaha colaadda la joogo ragga la isku hadlay kiisa ugu adag wey reer khalaf mar kale iyo mar saddexaad baa wiil kasta iyo gabar kasta reer khalaf halka ka salaamay inta dhimatayna Allah u naxariistaan leh inta dhaawacana Allah u boogadhay waxa soo haray ugaar Saleebaan yaa ugaar Saleebaaniya waa soo haray ugaar Saleebaaniya waa afar dagaalka maanta la qaaday ma ahay kii hore iyo kii ka sii horeeyay khasaaro weyn baa ugaar Saleebaan iyagana gaaray baabuurtii ka gaaray oo raggii ka gaaray iyagana ragga maanta cibaadaysta bay kamid ahay waxaan ku leeyahay waa maasanta beel daaji waxa dhacday Ciise Maxamuudiya Ciise Ruush saddex nin baa Ciise Ruush ka shahiiday qaliyar ciidankii uu wata kamid ah raggii gacanta ula tagay oo argagixisadu saarkeen saddex nin baa maanta iyo dhowr nin oo dhaawac la sheegay laakiin tiro sax ah oo hadda dhaawac Ciise Maxamuud laga ogaan karo male sida ragga kale oo kale laakiin saddex nin oo dhimasho ah baa maanta Ciise Maxamuud saarada u saaran markii hore 7 bay ahayd intuu dagaalkaas socday 30 nin Ciise Maxamuud reerka ugu badan oo ugu xoolaha badan iyo xoolihii la isku qoray 864 neef keeneen degmo markii xoolaha la isku qoray Ciise Maxamuud waa ogaa Ciise Maxamuud waa aqaan waa sababta loo maago oo hareeraha loo haysto waa reer markii goob colaad joogto reerkay reer la yaqaan wey oo dhiig badan wey oo dagaalamo wey oo xataa wiilka helicopter baasha gacanta ku qabtay wiil Ciise Maxamuud ah wiilka miinada qufay wiil Ciise Maxamuud ah maanta saddex nin baa ka shahiiday waxaan leeyahay kitaabkooda midigta Allah ka siiyo ragga kale Ciise Maxamuud meesha jooga awgeena inay ku dhamaadaan iyagana waxaan leeyahay kitaabkiina midigta Allah ka siiyo argagixisada Daacish sharafta beesha Ciise Maxamuud sharafta daarood sharafta Puntland idinku ilaalinaya cadawga markaad aragtaan waa inaad dabar jirtaan garaadkuna ducida la daba taagan yahay iyo bogaadin alleelka siiya darbi daarood waad ogtahay in deegaankiisu xabad ka socoto waad ogtahay in gurigiisu xabad ka socoto saaka saddex nin baa ka shahiiday leelkaas iyagana waa rag xilligay adag tahay lagu baxsado wey leelkaas halkan ka salaamaya wiil kasta iyo gabar kasta leelkaas oo deegaankiisu xabad ka socoto oo Puntland garab iyo gaashaan dani dibira ka waayay laakiin iyagu kuma dayan raggoodii furunta ku dhamaanaya hadda kaliya maaha waa markii labaad weey markii saddexaad weey oo leelkaas ay wax kaga dhintaan dagaaladaas baadul baante ilaahay hadda waxba kama dhiman dani reerkiisu jikaday ku jiraan dharkay dhaqayaan saxamuuntay dhaqayaan tuutay ciidanka u dhaqayaan iyaga meesha ugu hubo waaweyn meel walba Cabdirabbi wiilka BMBF taysto in Ciise Maxamuud weeye kii ka hooseeyay Ali Jibril saaku hadu go'ay kan dan adeerku yahay Cabdirabbi saaxiibkeena nin gobo weeye horta laakiin inuu dhintay ahay ma dhimanayo dhaqaaluhu ku fadhiya iyo macdanta ana man aqli badan weeye Ciise Maxamuud وأيام در وريا ملاحظ ورفيري عبدولي محمد على قاس فيري غير كيس ولا ما جرى عمر محمود فرار فيري يسمع من قنين وصاحب ذي ولا عليها كل انتوا وفرار حكم كفرديه واقع عبدولي يوسف فيري واقع لا ورب الرحمن عم بيرك ودي ما حفيري سا ان واقع حفيري سا حتى وعدم وسو كفرديه بعد درتو اللي ما جرت سي نينك ارغو انتوي بعد البانتو جكده فديا ما دنتا واقع نحقن وحنا ما قاران عنظر يومك وودي وقولالي بل انت تليه كل يندي وقولالي وإيشك لا ربع مان عمبيرك ودمن وعبد الربي ومحمد دقيح ومد أجا سمعيو سنة ماشي تشوفوا واحد بس نقع بالسنة ولا ده واحد ده مجي عيسى إنا عبادال ده وإيشك وأضو إلى أي شنسر قلبي كل يوم ماشي وهو وين بايستا ما ندي ما نيا هل فيري قال واحد وعمل صوت ليا دون قاعد صوت ليا بودا وعمل إلك صوت ليا بودا وعمل ليبر صوت ليا بودا وعمل لوي تري صوت ليا بودنت بعد البانتو ما دي ما تو يكون أنا جاية
يا قبيلة يرير قوة يرير مر انت ثم والله هذا هو يكوسو قرية ياخذ داعش بوشقة يكوسو قرية يا عينك يا حقته هذه هذا حبك ما دمنا ياندي ومسيري سامرك دمو أرض ثم والله واد دمنا يسا ماشي تقو كل دمو رقم ماشي كل ما ضي وأنا شرفته يسوع يو قيم كذا كورنا قصر ضيع لسكع معه بدأ اللي باتاي دشيس نعرض إلهي نكوجود عضي دمو والله واد دمنا يسا إلى تقدرت يو معان كان أظن رجنا دمان saaka dagaalkii ugu horreeyay oo meeshaas intay labada bilood la joogay dagaalkii ugu horreeyay saaka la qaaday gacan baana la iskula tagay siyaasada muljamca way waluna dubur ba maanta ka dhacday argagixisada qasaarooda ma ogaan karno laakiin annaga qasaaraha Puntland inta aan ognahay oo la xaqiijiyay waa kaas wax dhaawaca oo hadda la ogaan kara ma jirto qasaaru waa badan yahay aaska isugu midoobaaday waxba khatara hadda dadka dawladda gurmad kala u dirin waxa khatara oo dhaawacyada si fiican loo soo daad gureen waxa khatar inay ka daba yimaadaan rag maanta dhan dagaalamayay gurmad cusub in ciidanka loo diro way waxa la sheegay deegaanka loo geesa qabad oo hoostaga degmada Ufeen gobolka Bari in ay soo dul degeen Daesh bullarin ay ka shidanayaan waxaan halkan baaq uga direeyaa Said Abdullahi Dani waxa la yahay BSF dagaalka kama maarmayso inaad wax ma yaqaan tahayna kuwii dadka ku xigay baad isfahmi laadihi inaad waxba kala garanayna raggaas BSF annagu Ismaan Axmed isqabadkooda xanaga ma qusayaan laakiin shacabka Puntland ragu wax waqti badan ku hurday way raggaas dagaalkana soo gelisay way argixisada bullarka isticmaalayaan iyo okiyaalayaasha wax lagu arko iyo istaraatiijiyada dagaalka Daesh lagu la dagaalami karo BSF wax badan bay ka goysaa bidda dhalay baa taa raggaan maanta dhamaadeen adaa laayay oo mas'uuliyadda qaadaya rag aad istaraatiijiyad u hayn rag aadan iishag aadan qorshe u hayn baa dagaal iska gelisay waxba ina beelaha meesha ku dhamaysid baartaa wax kala thuma wallahi ma rabtid ana Yacquub shaad saabku ma aamusin kartid inta arunta ku sheegi karo ku sheegay inta aan kula xisaabtamayo karo halkaas wax walba igu qoray waa qoranaya waxay laagtu muuqaalka meel dheer beegisa loofka anigoo Yacquub shaad bahla iga daata fiidiyogan haduu ku soo gaaro waxaan ka codsanayaa inaad sii share gareysid ciidamada Puntland guul soo qora barnaamijka inta ku gulmi doono argagixisada meel uga soo wadeejaysan haday tahay shabaab يا هذا داعش أرجع حسهم ملء إهل يقرأوا منا السلام عليكم ورحمة